kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada qaybtii 19aad ee barnaamijka taxana ah oo aynu ku eegnay nolosha Amiirka Cas. Shalay waxa ay noo joogtay ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ergey u soo dirsaday magaalada Beirut si uu indheeyo xogaha sirdoon ee ka soo gaaraya halkaasi iyo inay yihiin kuwa sax ah oo lagu salayn karo hawlgalka khaarijinta Amiirka Cas. Rafi Aitan warbixino lagu kalsoon yahay ayuu u gudbiyay saraakiisha fulinta hawlgalka isla markii uu noqdayna waxa Lubnaan yimid laba nin oo kala ahaa Berer iyo Roland oo ay weheliso gabadha Erika wana kooxdii fulinaysa hawlgalka 13 January 1979 telefoonka wakaalada iibka iyo kareynta gaadiidka ee Lansar ee xarunteedu tahay magaalada Beirut waxa soo garaacay nin ka soo hadlaya magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska. Waxa uu mas'uuliyiinta wakaalada u sheegay inuu yahay dalxiis lagu magacaabo Berer oo doonaya in uu Beirut yimaado 18 isla bishaasi oo 5 maalmood kadib noqonaysa. Berer waxa uu codsaday in wakaaladu ay u diyaariso gaari yar oo kira ah. Runtii ayay ahayd oo waxa uu Beirut yimi 18 January xilligaasi dalka Lubnaan waxa uu aad ugu hanqaltaagayay inuu hormariyo wax soo saarka dalxiiska oo ahaa isha dhaqaale ee ugu muhiimsan dalka. sidaas darteed waxa uu sameeyay nidaam ruuxa dalxiisaha u sahlaya inuu si fudud oo dhaqso ah ku soo gali karo dalka. Berer waxa uu ka degay Beirut hotelka caanka ah ee Mediterranean halkaas oo uu diyaar ugu sii ahaa gaarigii uu dalbaday oo noociisu ahaa Golf midabkiisuna uu cirka oo kale ahaa. Isla maalintani waxa uu Berer la kulmay dalxiisa u dhashay Canada oo ay hore u sii ballameen. dalxiisaha reer Canada Roland isagu waxa uu magaalada yimi maalin ka hor imaanshaha Berer waxana uu deganaa hotelka Royal Garden. isla shirkadaasi hore ayuu isaguna ka kireystay gaari noocis yahay Simka. maalintii saddexaadna waxa xafiiska wakaalada kireynta gaadiidka yimid macmiilkii saddexaad waa Erika oo dalbatay in laga kireeyo gaari adkaysi leh oo iska xijin kara safarada buuraha iyadoo ku andacoonaysa inay doonayso inay gaariga ugu dalxiis tagto buuraleyda dalxiiska loo tago ee dalka Lubnaan. wakaalada Lankar waxa Erika ka kireysay gaari noociisu yahay Datsun oo ay dhigatay rug baabuurta la dhigto oo aad ugu dhaweyd gurigeeda. markii ay saddexdan ruux gacanta ku dhigeen gaadiidka ay kireysteen oo mid kasta uu la tagay halkii uu deganaa iyagoo oo jilaya inaan midna mid aqoon. saddex doonyood oo kuwa gantaalaha xambaar ah ayaa baroosinka soo dhigtay xeebta laba degaanka ah ee u dhaxaysa Beirut iyo dekada Junya waxayna ku rageen rar aad u culus oo ahaa walxaha qarxa. Roland iyo Berer ayaa xeebtan diyaar ku sii ahaa meel aan ka fogeyn halka ay doonidu ku ragi doonto walxaha qarxaya si ay u raraan walxahaasi oo ay u soo saaraan gaarigii golfka ahaa. 22 January ayaa Berer waxa hotelkii uu deganaa uu ku wargeliyay in uu guurayo isla maalintaasina waa uu baxay isagoo sii kaxaysay gaarigii golfka ahaa waxaana uu si toos ah u abaaray jidka Rotterdam ee magaalada Beirut oo ah halka uu ku yaalo guriga Erika ay degan tahay kana soo horjeeday guriga Amiirka Cas. waxa u dhaxeeya jid yara ku darsama jidka halbowlaha ah ee Verdun. waxa uu gaariga dhigay meel ku toosan daaqada guriga ay degan tahay Erika ee dabaqa sare ahaa. Berer dalxiisa ma ahayn waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka Mossad oo waji aan ahayn kiisa runta ah ku yimid Beirut. markan isagu waxa uu dhameystiray hawsha intii ka khusaysay. sidaas awgeed inta uu gaarigii si aamin ah u dhigay rug baabuurta la dhigo oo dhinaca ku haya jidka ayaa uu taxi ka raacay si uu ugu dhoofo tigid u go'naa oo dalka Qubrus ahaa. dalxiisihii labaad ee reer Canada Roland isla maalintaasi ayuu fasaxay qolkii uu ka deganaa hotelkiisa. waxa uu guuray hotel kale kaasi oo ku yaala degmada Junya. hotelkii uu deganaa Berer iyo labada hotel uu soo maray Roland dhammaantood waxay ahaayeen hotelada dabaqada sare ah. inay degaanna waxay ahayd xeelad ay ku nabadgelayeen maadaama oo loo arkayay dad ladan oo dhaqaale la yimid dalka. degmada Junya ee uu ku yaalo hotelka dambe ee uu guuray Roland waxay 16 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada Beirut laakiin si guud waxay uga tirsan tahay degmooyinka caasimadu ka kooban tahay oo la isku yiraahdo Beirut daweyn. waa degmo badda xilligeeda dhacda oo leh goobo dalxiis iyo nasasho loo tago waxaana ku yaala baarar waaweyn oo aan habeenkii laga seexan. dalxiisayaasha Lubnaan yimaadana lama huraan ayay u hayd inay qorshahooda ku darsadaan aragtida degmadan. waxyaabaha kale ay degmadan caanka ku tahay waxaa ka mid ah wiishashka xarkaha ku xidhan ee meelaha sare ka soo lusha kuwaas oo buuraha figtooda sare la isaga gudbo. maalintii xigtay oo ahayd Isniin galinkeedii hore waagu waxa uu Amiirka Cas iyo ururka xoreynta Falastiin ugu bariyay dhib la'aan. waxa uu noqday masiibo ay muddo qaadatay ka soo waqsashadeedu. 22 January 1979 Amiirka Cas waxay u ahayd maalin kale oo ka mid ah maalmihiisa caadiga ahaa. saacadii u gooneyd ee lagu yaqaanay inuu aqalkiisa ku soo noqdo ayuu u soo qada doontay 4 galabnimo oo rubac dhiman 3:45 daqiiqo ayuu Amiirka Cas mar kale caadadiisii raacay oo isagoo degdegsan waxa uu soo fuulay gaarigiisa Chevrolet-ka ahaa. ilaaladiisuna iyagoo ordaya ayay boobeen gaarigii Land Rover-ka ahaa ee ay ku dabageli jireen. sidoo kale waxaa dhaqso loo istaaray gaari yar oo ahaa nooca leyrka biliisku uu dusha sare kaga xidhan yahay ee inta badan madaxda horgala si ay jidadka ugu sii baneeyaan. sidii ayaana saddexdii baabuur ay kaga soo dhaqaaqeen guriga Amiirka Cas iyaga oo ku socda xafiiska uu ku yaalo
xarunta maamulka ee ururka xoreynta Falastiin. Kolonyadii amiirka casaarna waxa ay markiiba ku soo dhaceen jidka Road Madami, kadibna waxa ay u beedheen jidka weyn ee Road Vardan. Dabaqa saddexaad ee fooqa ka soo horjeeda gurigiisa waxaa ku soo taagneyd Erika oo gacanta ku haysay qalabka meesha durugsan wax lagaga maamulo ee remote-ka loo yaqaano. Waxay si feejigan iyo hubsimo leh ula socotay xawaaraha ay ku socdaan baabuurta amiirka casaarna iyo hadba masaafada ay u jiraan gaariga walaxaha qarxa laga soo buuxiyey ee beerar uu dhigay goobta indhaheedu ahayaan ee daaqada gurigeeda ku toosan. Remote-ka ay gacanta ku haysaa waxa uu la shaqaynayaa qalab ku rakiban gaariga. Marka ay gujiso remote-ka ayaa uu qalabkaasi samaynayaa short koronto oo qaraxa sababaya. Waxay og tahay in qalad yar oo ka dhaca uu badbaadin kara amiirka cas. Haddii ay taasi dhacdana aanay iyadu badbaadayn. Markii ay hubisay in gaariga amiirka cas saaran yahay uu hareer maraya gaariga walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ay qarxisay. waxaa dayaamay qarax dhul aad u durugsan laga soo maqlay oo mar kaliya gaarigii qaraxu ku rakibnaa ka dhigay sida kubad ololaysa. waxa uu markiiba dab qabsaday gaarigii Tafroladka ahaa ee ku dhawaa oo isna ilbiriqsiyo gudahood ku qarxay. waa gaarigii uu saarnaa amiirka cas. burburkii ka soo dhamalmay baabuurta qaraxday oo weli ololaysa iyo faliiryadii qaraxaasi ayaa inta ay isla oogsadeen kor u kacay oo dhul ballaaran ku faafay. ilbiriqsiyo gudahood ayay sida roobka dhulka ugu soo daateen. jiha kastana waa ay u firdheen filiidhadaasi waxaanay daaqadaha ka daadiyeen guryihii ku dhawaa dhulkaasi oo dhan. meydkii dadka baabuurta saarnaa oo inta uu wada gubtay dhuxul weyn u ekaaday ayaa isna ku soo duldaatay gawaarida. muddo yar gudahood waxaa goobta masiibadu ka dhacday soo gaadhay baabuurta bilayska iyo kuwa gurmadka caafimaadka. kooxihii caafimaadka ayaa baabuurta gudahooda iyo korkooda ka soo ururiyey meydka 4 ruux. waa darawalkii gaariga Tafroladka ahaa. labadii askari ee ilaalada gaarka u ahayd amiirka cas. waxaa kale oo qaraxan ku geeriyooday Cali Xuseen Cabdirasaaq, Khaliil Axmed Xuseen, Jumayli Xasan Rumxi iyo nin magaciisa lagu soo koobay Zaayid. dhammaan 4 nin oo dhalinyaro ahaa waxay ahaayeen ilaalada gaarka ah ee amiirka cas. Erika ayaa ah gabadha xogta ugu badan ka ururisay amiirka cas. muddo ayayna kaamarada kuwa aragtida soo dhaweeyay ay dhaqdhaqaaqaysa oo dhan kula socotay iyadoo oo ku sugan guriga ay degan tahay ee ka soo horjeeda guriga amiirka cas. Erika ayaa sidoo kalena noqotay ruuxa gacanteeda ku fulisay weerarka galaaftay ninkii ay Israa'iil 10 sano ku daba jirtay. nabarka ugu weyn ee geerida amiirka cas waxa uu ku dhacay hogaamiyihii Falastiiniinta Yaasir Carafaad. waxa uu joogay magaalada Dimashq ee xarunta dalka Suuriya waxaana warka dhilada ah u gaadhay isagoo ka qayb galaya shir ka socday magaalada Dimashq. mid ka mid ah gacan-yarayaashiisa ayaa ula soo galay warqad lagu soo diray isgaarsiinta Telegramka oo warkan dhilada ah lagu soo qoray. isla markiiba ilmada ayaa indhihiisa ka soo burqatay. waxa uu waayay gacantiisii midig ee uu ku hayleen jiray hawl kasta oo u baahdo siyaasad, diblomaasiyad, sirdoon iyo ammaankiisa intaba. waxa uu ahaa ergigiisa gaarka ah ee uu diro kulamada xasaasiga ah ama qarsoodiga ah ee isagu aanu doonayn inuu tago. marar badan si bareer ah isaga oo ka wakiil ah Yaasir Carafaad waxa uu la kulmay mas'uuliyiin sare oo ay ku jiraan madaxweynayaal dawladeed. dooni yar oo kuwa dagaalka ah ee gantaalaha xambaara ah ayaa isla habeennimadaasi maalintii qaraxu dhacay waxa ay ku soo xidhatay badweynta shishe ee dekada Juniya duleedka Beirut. waxa ay sidee laash rabar ah oo ay dhigtay xilliga badda. waxaa halkan ku sii diyaar ahaa Roland iyo Erika. waxa ay xeebta ku yimaadeen labadoodii baabuur ee u kireysnaa oo mid kasta kiisa gaarka ah u watay. labadan basaas ee ku soo guulaystay howlgalkii loo diray iyo ciddii laashka yar wadayba markiiba waxa ay dhaqso u raaceen laashkii oo ay doonida ku gaadheen. saacado aad u yar kadib iyaga oo bad qaba waxa ay joogeen Israa'iil. bilayska Lubnaan ayaa helay labadan baabuur oo badda xilligeeda iyagoo istaaran lagaga tegey. Cali Xasan Salaama waxaa lagu aasay xabaalaha shuhadada ee magaalada Beirut waxaana janaasadiisa ka qayb galay 10,000 oo ay horkacayeen Yaasir Carafaad iyo dhammaan madaxda sare ee ururada iyo jabhadaha kala duwan ee Falastiiniyiinta.